horumarinta dalkan iyo difaaca dalkan aanu diyaargaroo 3 iyo 30 sanadood ayaa laga joogaa waqtigii aynu ku dhawaaqnay ee burca lagaga dhawaaqay kooniyuusitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland sida laajigeed walaalayaal arrintaasi in badan baa waxa weeyaan xasad badan bay yeelatay xumaan badan bay yeelatay kiidadii noogu xigay ama Soomaaliya soo fadhiyay ama Jabuuti soo fadhiyay ee aynu walaalo ahayn ayaa waxa weeyaan maanta u soo qaashartay inuu kala tuuro oo baabi'iyo oo shacbigan dagaal galiyo oo awdal dagaal galiyo oo laascaano dagaal galiyo arrintaas waxa weeyaan waxaan shacbi weynaha halkan maanta isugu yimi iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland war arrinta aan u midowno oo isu kaashano oo waxa weeyaan maanta waxa weeyaan ilaahay jalla wa ala nabadgelyada wa inta udu nicmatallahi la tuhsuha nimcada ilaahayna siiyay faraha badan leh maanta waa lagu soo duulay ma ilaashana ma midowna nin walba qorigaagii baad haysataa oo geeraagii baad haysataa nin walba waxa weeyaan haddaan ilaahayna badbaadin dalkana badbaadin looguma talageline nin walba istiyaariyo qoriga talkaa haysatay ee saadiga haysatay ee walaalka haysatay ee inaadeerka haysatay ee talkaa haysatay nin walba inaad maanta sida dalkan aynu waxa weeyaan aynu marka horeba xoreyntiisa uga wada qayb qaadanay waana ka wada qayb qaadana fariinta labaad waa fariin caama hadda ogtiin iyo hadeydaan ogay badalkan waa loo soo dhaansaday colaad iyo fidna la doonayaa in laga kiciyo horumarka iyo doorashooyinka iyo nidaamka aynu u guuray iyo maanta xidhiidhka aynu la sameynay dawladda walaalanahay Itoobiya arrintaa waa lagu soo duulay Soomaaliya iyo Jabuuti oo maanta awdal state ciidana maanta laga abaabulay ayaa maanta dalkan ku soo duulay waxaan leeyahay haddaynu reer basalaha goradnahay iyo haddaynu shacbi weynaha Soomaaliland